dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalin la khilaafaadka u dhaxeeya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe. Fuad Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintaas inoo akhriyay. shirkii Imbagati ee Kenya ka dhacay Soomaaliya waxa ay gashay go'aan muran badan dhaliyay. Waa go'aan ahaa in Soomaaliya ay qaadato habka federaalka. maamulka Puntland ayaa looga dhawaaqay Soomaaliya 1998 madaxweyne waxa ka noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo markii dambe noqday madaxweynaha Soomaaliya. dowladihii Soomaaliya soo maray oo kala duwan waxa ku dhismay maamul goboleedyo kala duwan sida Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hiirshabelle. xaaladaha oo isbedelay waxa la helay maamul goboleedyo cusub oo qaarkood sameeyskoodu dhiig ku daatay. dad ay ku barakaceen khilaaf siyaasadeedna uu ka abuurmay. mararka qaar maamul goboleedyada waxa ay qaateen go'aano saameyn ku yeelan kara madaxbanaanida Soomaaliya. khilaafkii khaliijka dowladda dhexe waxa ay qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo ah. meelo badan oo caalamka ka mid ah waxa looga hambalyeeyay sida ay banaanka uga istaageen go'aankaasi. balse maamulka Puntland ayaa qaatay go'aan ka duwan. waxa ay taageereen go'aanka xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka. awood qaybsiga maamulada waxa lagu qeexay in beeluhu ay kala leeyihiin xilalka. kuwa waxa ay u tartamayaan madaxweynaha, kuwana xilalka ka hooseeya. taasi waxa ka abuurmay in dadka qaar ay isku arkaan muwaadiniinta darajada labaad. qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa loo diiday inay xilal sare ka qabtaan maamulada ay u dhasheen. ma haystaan qaarkood xubno baarlamaan ah, wasiiro ama xilal kale. maamulka Puntland waxa lagu eedeeyaa in qolo gooni ah ay leeyihiin hoggaanka, beelaha kalena lagu qanciyo xilal kale oo aan ahayn kan ugu sareeya. 4 madaxweyne oo Puntland soo martay oo ku jiro Cabdiwali Gaas dhamaantood waa kuwa hal beela. Galmudug doorashadii dhawaan ka dhacday waxa ku tartamay 2 nin oo isku beel ah. inta kale ma jirin qof isa soo sharaxay. maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxa lagu eedeeyay inay gacanta isaga haystaan madax kooban kaliya balse aysan jirin matalaad muwaadiniinta ka soo jeeda. shalay maamulka Hiirshabelle waxa ka dhacay doorasho ay ku tartamayeen 8 musharax oo hal beel ku wada abtirsada. looma ogoleen qof kale oo ka soo jeeda beelaha Hiirshabelle inay isa soo sharaxaan. tani waxa ay burinaysaa xaqa uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee ah in la doorto ama uu wax doorto. dadka qaar waxa ay ku andacoonayaan in beelaha loo kala qoondeeyay xilalku ay tahay mid walaaceeda wadata. qaarna waxa ay aaminsan yihiin in federaalku uu yahay mid sharci darro ah oo dibadda looga keenay. haddaba stuudiyaha waxaa igala sugan Cabdicasiis Takar oo ka tirsan isbahaysiga Rajo. Cabdicasiis dhaw waa maasantahay aad iyo watay sideed u aragtaan nidaamka federaalka ee hadda dowladda Soomaaliya ku socoto? isbahaysiga Rajo waxaan u aragnaa nidaamka federaalka ee dowladda Soomaaliya maanta haysato inuu u dhigmo qaybintii Soomaaliya lagu sameeyay 1948 oo kale. waaga waxa laga hortagay barnaamijka Soomaali weyn kan hadda la sameeyayna waxa weeye mid loogu talagalay Soomaaliya inaysan labadii gobol oo israacay aysan dawlad kala ka dhalan markii ay ummadeena ka soo baxeen dagaalkii sokeeye oo 91 dhacay. anagu meeshaas inoo taagan tahay waa qaybintii labaad oo Soomaaliya lagu sameeyay. maxaa daliilsantiin oo ka rajo ahaan ka xisbigiina ahaan? waxa weeye markii ugu horeysa fikradda ah in nidaam federaal Soomaaliya qaadato fikrad Soomaaliyeed ma aha. waa fikrad ay ajaanib u keeneen dad Soomaaliya ku shiraaya wadanka dibadiisa. iyaguna kama baaraan degin, ma turxaan bixin, kama fikirin sideeda u qaateen. marka labaad haddii barnaamijkaas loo soo sameeyay cidii u sameysay ma soo raacin waxyaabihii lagu maamuli lahaa barnaamijka. maxaa yeelay waxa loo baahnaa haddii federaal la sameeyo goboladu hadday isqabtaan wixii lagu heshiisiin lahaa waxa loo baahnaa maxkamad dastuuri in la sameeyo, waxa loo baahnaa in dastuurkii wadanka la qoro. waxaasoo idilna wax la haweysta maaha kuwii saxiixay iyo dowladihii ka dambeeyayba. midda kale waxa weeye fikradan federaalka hore Soomaaliya loogu dayay waagii SYL laakiin dadku waagaa jooga waxay ahaayeen dad nool oo arintaas aan ogoleyn oo raalli ka ahayn. midda xigtaa waxay noqonaysaa fikradda kaliya oo saxda ah oo jirta maaha. dowladaha adduunka waxa dowladaha federaalka isticmaala waa dowlado yar. حتى دولة أفريقيا استعملوا دولة ير مركب فكرة بدن باجرة الله سمين كرو لكن أنا جو وحين نقطة أرهن لجو خلدي وعن لجب براندجين وعن دد له هرتجين وعن لترحم بحن نتيجة ده والله هي هذا. haddii ay jiraan dhibaatooyin
dhibaatooyinka ugu waaweyn ee caqabadaha markaa haystaa maxay yihiin? marka ugu horeysa dadka fikirka federaalka aaminsan dad xun maaha. dadkaasi waxay u arkaan aysan mar labaad aysan ahayn waajibka in loo noqdo inuu xaakim joogo magaalo fog oo uu maalkii iyo dowladdu haysto dadkii jooga daafahana ay dhibaataysan yihiin. taana anagu haddaan nahay isbahaysiga rajo ma ogolin, raallina kama nihin. laakiin waxaa jira nidaamyo kaloo la sameyn karo aan ahayn federaalka qabiilka ah oo Soomaaliya loo sameeyey. dhibaatooyinku waa badan yihiin, dad Soomaaliya wax ka qorayna waa jiraan oo badan. annaga ahaan isbahaysiga rajo waxyaabaha nuqsay waa laba arrimood. arrintan federaalka qabiilka oo laga sameeyay Soomaaliya wuxuu ka soo horjeedaa midnimadii Soomaaliya inay mid ahaato, wuxuuna xadgudub ku yahay qofka Soomaaliga ah ee Soomaalinimadiisa. labadaas way labada anaga noqosayso. waa ognahay arrimo dhaqaalaha jira, arrimo kale jira. sidee marka ay labadaas arrimood u jiraan? waxaa la sameeyay dowlad goboleedyo qabiil ku salaysan. waxaa la sharciyeeyay nidaamka qabiilka ah ee Soomaalida ay ka soo gudbeen dagaalkii markuu dhacay 91 iskii u dhamaaday ayaa 2000 dib loogu celiyay isagoo sharci ah. taa waxay keentay in qofka Soomaaliga ahaa laga dhaadhiciyo meesha uu reerkiisu degan maahay meel kale inuusan lahayn. marka taa waxay ka soo horjeedaa midnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloo jira isla dowlad goboleedka mid ay doontaan noqoto 6 jiraba isla dowlad goboleedkaas waxaa jira arrin ah in qofkii Soomaaliga ahaa oo ku noolaa loola dhaqmay sida muwaadin darajada labaad ah oo qabaa'ilkii laga baqayay inay ka hor imaadaan nidaamkaas federaalka ah waxa magdhow loo siiyay ama dhaxal inay xukunka iska dhaxlaan. arrintaasna arrin loo adkeysan kara ma maxaa yeelay waxay noqotay dadka Soomaaliyeed oo qabaa'ilka kala ahaa oo ku noolaa goboladaas in loo tuso inaysan xaq iyo waajib aysan lahayn. arrinta Ilaahay ma ogola, sharciga adduunka ma ogola, sharci ogol ma jiro. sharciga kaliya ogol in saa la sameeyo waa sharciga duurka. taana weeye waxaan u leenahay arrintan waa arrin khaldan loona sameeyay inaysan Soomaaliya weligeed ku heshiin. maxaad xal u aragtaan marka? xalku waa badan yahay. xalku waxa weeye marka ugu horeysa inaan mar labaad dib loogu noqon arrintii ahayd in Soomaaliya uu ka jiro dictator magaalo jooga oo isagu xukumo wadanka oo idil wuxuu doonanayo taa in loo noqdo marnaba ma aha. laakiin waxaa jira nidaamyo kale oo aan federaalka qabiilka ahayn oo la sameyn karo oo ah in gobolada مثلا la siiyo xukun. markaad leedahay federaalka qabiilka maxaad uga jeedaa? federaalka qabiilka waxa weeye waa la ogyahay Soomaaliya hadda dowlad goboleedyada la sameeyay dowlad walbaba intii isku heeb ahayd lagu ururiyay. markaas waxaa la yiri waxaa samaysataan barlamaan iyo dowlad iyo xukun. waxaa la sharciyeeyay qabiilkii. Soomaalidu waa qabaa'il oo hadda qof qabiilka inkiri kara ma jiro. laakiin in qabiilka la siiyo sifo ah rasmi oo la yiraahdo idinka isku qabiil ah meesha taga oo waxa samaysta oo idinka ma cid kale ku noolaan kara meesha ma jiraan. dadkii naas isku qabiilka ah ma qof kale oo Soomaali oo xaq u leh gobolka ama madax ka noqon kara ama maal gashan kara ama xataa si xorriyad ugu noolaan kara ma jiro. taa way dowlad qabiil waxa aan federal qabiil way. hadda federaalkaas qabiilka laftirkiisu cadaalad ma yeelanayo. maxaa yeelay qabiilku waa la ogyahay mar walba waa xumaan. waxaa dhacday qabaa'ilkii markii ay meesha tageen oo dowladahu dhisteen kuma heshiin. iyaga laftirkooda waa isku qabteen. markaas waxaa imaatay magacyada hadda maqasheen oo badan. dowlad federaal qabiilka waxaa ka dhex samaysmay federaal qabiil kale. waxaa jira Bakool Sare, waxaa jira Gardafuuy, waxaa jira Hayaan, waxaa jira Owdalland, waxaa jira Hiiraan oo hadda maantay laba shalay waa arkayseen. waxyaabaha fool xumada ah oo federaalka qabiilka qofkii dab u fiiriyo arkay waxa kamid ah in 8 qof oo Soomaaliya oo laga yaabo in dad wada xilkas ay yihiin kaligood loo soo shiriyo inay ka noqdaan madax hal goob oo dadkii ku noolaa gobolkaas oo dhan la yiraahdo Soomaali ma tihiin, xilkas ma tihiin, muwaadinimadiina waa naaqus darajada labaad baa tihiin. waa ka federaalka qabiilka ah oo mujtamaca adduunku uu ku hoosaasiyay Soomaaliya sanadkii 2000 inay helaan filaya oo u dhigma qaybinta Soomaaliya lagu sameeyay 1948. marka xalku waa la yaqaan. xalku waa inaan dictatorka loo noqon. laakiin xalku waxa weeye in dowlad maamulada ama goboladii jiray ama 8 ha ahaadaan ama 18 ha ahaadaan wixii la isku raaco loo sameeyo xukun hoose oo isku maamulaan. in uu jiro accountability, inuu jiro dastuur wadanku uu leeyahay oo lagu qanacsan yahay. dastuurka maanta qabyada oo Soomaaliya yaal lacag ku dhow 50 milyan oo dollar baa mujtamaca adduunku ay ku qarash gareeyeen ilaa haddana waa qabyo. hadhowna la isku ma raaci doono. marka taa way anaga mid aan u aragno inay khalad tahay
oo ay tahay waajib in la saxo kulleyna haddii ay Soomaaliya ay yimaadaan dad muwaadiniina oo Soomaaliya oo xora markay yimaadaan waxaas oo dhan waxa loogu noqon doonaa dib inta fiican oo ku jira haddii ay jiraan wax fiican waa laga qaadan doonaa inta kalena waxa la raacin doonaa daadka maxaa yeelay dastuuran isku raacsanayn oo qabiyo ah iyo barnaamij ay shisheeye soo diyaariyeen oo ah dumin Soomaalidu ma qaadan doonto waa tahay